sharciga jiray shalay oo sareeyay mise sharci darrada sareeyay shalay waxa sareeyay sharci darrada maantana sharciga sareeya hadaynu dadkeena baraarujin weyno oo aynu fahansiin weyno waa maxuriyatul qowlku waa maxay hadallada naciibka labada hadaynu fahansiin weyno waxa ka dhalan doona dhibaato badan xurriyadda qofku waxay ku eg tahay inta laga gaarayo sanka qofka ka xurriyadda saxaafadana waxay ku xiran tahay oo keliyata waxa weeyaan in waxtarka bulshada ay ka shaqeyso bas waxay ahayd hadig garoon bay soo dhigtay sanduuq laba sanduuq bay isbarbar dhigtay imbi iyo ishi baa ku kala qoraa haye iyo diiday iyadoo waa xurriyatul qowl waxba inaga yar dhigada nidaamkii hadiga shalay iyo waxaan kala fahmi laanahay nidaamkan maanta ee neefti inaga soo daayay bini aadamnimo ahaan ilaahay baa karaamiyay xurriyadna siiyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن بدأوا هذا قيمة هي قدر أنت مدن ميل والبعض على سعتان كسر هذا برنامج ضد علمية ذا أو كسر بسن حرية هذا الكا إيو هذا الذا نعيبك أنت بدن برنامج كذا أينو ربناه إن بلشدنا غيبوين أينو أي كقطعنا ما أي وعي بدن كهلان وحكم إذا برنامج كذا كسر بسن حرية هذا الكا iyo nacaybka in ay aqoon ama wacyi guud aynu ka siino si ay u fahmaan kala duwanaanshiyaha ka jira halkan ama doodaha noocan oo kala waxaa xaqiiqo ah oo maragma doonto ah in muddooyinka u dambeeyay dunida casriga ay ku soo badanayeen isticmaalka iyo xoojinta xorriyadda hadalka oo xuquuqo kala duwan iyo xeerar kala duwan badunidu ay uga dhigatay dal ahaan aynu ka leenahay xorriyadda hadalku waa tiir muhiim u ah oo ka mid ah xuquuqaha asaasiga ah ee bini aadamka waxayna u baahan tahay inaynu fahan guud iyo fahan gaar ahaaneedba aynu ka qaadano sidoo kalena fahanka hadallada nacaybka ah inaynu aqoon iyadana si guud uga qaadano doorka martida kala duwan ee halkan inagala joogta ayaa mid waliba uu qeybtiisa uu ka qaadan doonaa si guud ayaynu barnaamijkeena ugu bilaaban doonaa intaynu ku guda jirnana waxaynu xooga saari doonaa arrimaha ku saabsan doodani ugu horeyn waxaan kusoo dhaweynaynaa bal si uu faahfaahin guud iyo dulmarid bay noogu sameeyo mudane abdeeq oo ka socda xafiiska warfaafinta su-aalaha muhiimka ee khuseeya maxay tahay xorriyadda hadalku xorriyadda hadalku ma leedahay xuduud haddii ay tahay haa waa maxay xuduudahaasi abdeeq baan bal labadaas su-aalood isku raacinayna insha allah kusoo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta fagaaraan quruxda badan iskugu timida waan salaamayaa xubnaha doodiga la qayb qaadanaya aad iyo aad baan salaamayaa faarax abdina aad iyo aad baan salaamayaa su-aasha haddii aan ku hormaro walow dadkii sharci yaqaanka ee meesha joogaan haddana waxaan jeclahay xorriyadda markii la tilmaamayo xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafaddu waa mid jirta waana xuquuq dastuurka dalka kan deegaanka iyo bayaanada kala duwan ee lagu aasaasayba warbaahinta hadday tahay intaba lagu qeexay xorriyaddu marka waa mid jirta una baahan in sida ugu habboon loo adeegsado loogana faa'iidaysto haddii aan idhaahdo xorriyaddu maxay tahay xorriyaddu waxay ka bilaabmaysaa hadalkaygu inuu noqdo mid bilaa turxaana oo saaxiibkayga i gaar fadhiya aan dhib iyo waxyeelo minatoon aan u keensanayn xorriyaddu dhinaca kale markaan ka eegna haddii la yidhahdo xorriyadda saxaafaddana waxay ku xidhan tahay oo keliyata waxa weeyaan in waxtarka bulshada ay ka shaqeyso bas xorriyaddu haddii ay dhaafto intaas xadkeedii bay ka gudubtay xorriyaddu xad bay leedahay shay walba xad buu leeyahay diinteenna macaan kitaabka qur-aanka waxa weeyaan shuruucdu ilaahay noo soo dejiyey waajibaad buuna saarayaa waxyaalo xuduudo uu noo sameynayna ka talaabinna wuu xadaynayaa waxaa yeel waxaa hayeelin waxaa yeel waxaa yeelin saasi lamid a xorriyaddu waxay fasaxaysaa inta ay gaadhsiisan tahay
ilaa inaad ummadda wax tirtid waxaana la xadiday ilaa iyo inta ummadda wax u dhimaya aad faragelinaysid hadday tahay wax khilaaf keenaya isku dhac keenaya khalqal iyo amniga iyo xasiloonida shacabka waxyeello u keenaya xorriyaddu markaas way xadidan tahay marka xorriyadda interestiga qaranka ama deegaanka inay waxyeelayso maahin inay amniga iyo xasiloonida waxyeelayso maahin in sumcadda iyo sharafta shakhsiga uu leeyahay muwaadinku leeyahay inay waxyeelaysana maahin arrimahaas oo dhan waa arrimaha keenaya meelaha ay ku xadidan tahay weyn xorriyaddu laakiin xorriyadda waxaa la rabaa in si habboon oo sharciga waafaqsan in looga faa'iidaysto dhinaca kale haddaanu dhigo saxaafadda imika caalamka kusoo kordhay barihii bulshada aan arkaynaa dad badan oo gole kafuula baa barihii bulshada waxay doonaan kusoo qoraya marka suxufigu isaga gooni baan uga hadli doonaaye waxaa la rabaa in si habboon oo sharciga waafaqsan aan uga faa'iidaysano haddii aynaan sidaas samaynin waxtarkeeda waxaa ka badan khatarteeda haddii hadalkeenna iyo xorriyadda saxaafaduba ay noqoto mid lid ku ah sarreynta sharciga waxay horseedaysaa khilaaf isku dhac iyo burbur inuu yimaado arrimahaasoo dhan marka waa arrimaha ka reeban abdeeq waxaan u siinay si bal uu xorriyadda hadalka aynu faham uga qaadano guud waxaa fadhiya commissioner ku-xigeenka commissionka booliska oo naga mahadnaqayno hogaamintoodii waxaa kaloo inala fadhiya xeerlaaliyihii xafiiska cadaaladda ka socda waxaa isweydiin mudan xorriyadda hadalka iyo hadallada nacaybka sidee bay xorriyadda hadalku isugu bedeshaa hadallo nacayba maxaase shuruuca oo dal ahaan iyo deegaan ahaanba u yaala xeerlaaliyaan kusoo dhaweynaa suubal xagga sharciga faahfaahin nooga siiyo kadibna commissioner ku-xigeenka ayaa noogu daraya wixii hay-adaha amniga ee kale ay arrintaasi ka dhahayaan haddii aan si kooban uga hadlo sharcigu muxuu ka qabaa xorriyatul qowlka ama xorriyadda hadalka iyo hadallada nacaybka iyo wararka been abuurka marka hore waa xuquuq dastuuri ah oo qof kasta oo muwaadini uu xaq u leeyahay xorriyatul qowlka ama xaqa hadalka qofku inuu fikradiisa iyo afkaartiisa cabiro qodobka 29aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo sidoo kale isla qodobka 9aad ee dastuurka deegaanka labaduba waxay si faahfaahsan uga hadlayaan qofku inuu xaq u leeyahay fikirkiisa afkaartiisa ra'yigiisa iyo waxa uu aaminsan yahay inuu si xor ah u cabiro marka waxaan oran karaa waa xuquuq dastuuri ah oo laf dhabar u ah jiritaanka ummadda mana jirto cid hor istaagi karaysa ilaa sharciga mooyaane marka uu sharciga ay timaado intee in la aqbal la xadidi karaya ama maxaa noqon karaya hadal nacayb ah ama warar been abuura sharciyaha ka soo baxay dastuurka markii laga yimaado waxaan soo qaadan karaa bayaanka 185 oo si gaar uga soo baxay hadallada nacaybka iyo wararka been abuurka marka si ay bulshadu u fahanto si kooban waxaan ugu dhigi karayaa maxaa xorriyatul qowl noqon karaya waxaa xorriyatul qowl noqon karaya hadal kasta oo qofku ku cabiraya afkaartiisa ilaa marka laga reebo mooyaane hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka labaduba saameeyna togan ayay ku leeyihiin bulshada bayaankaasi faahfaahsan u qeexaya qofku fikirkiisa wuxuu ku cabiri karayaa social media wuxuu ku cabiri karayaa mainstream media ama warbaahinta caadiga ah wuxuu ku cabiri karayaa qoraal wuxuu ku cabiri karayaa cartoon ama sawir ama muuqaal ilaa inta uunan hadalkiisu noqonaynin mid nacayb ah oo ama qoomiyad gaar ah ama koox gaar ah ama shakhsi gaar ah nacayb loogu abuurayo ama warkaasi uu tabinaya uusan ahayn mid been abuur ah oo keenaya rabshad khalkhal bulshada kala shaki ku dhex abuuraya inta uusan ka ahayn qofku wuxuu u madax bannaan yahay inuu si wanaagsan u adeegsado xorriyatul qowlka sidoo abdeeq ka dhawaatiyay qofku fikirka uu gudbinayo waa inuu noqdaa fikir saliim ah bulshada wax u taraya diiniyan akhlaaqiyan ammaan ahaan isjacayl ahaan ummadda dhexdeeda hadallada uu tabinayo sharcigu waliba wuu dhiirigelinayaa laakiin marka ay timaado inaad shakhsi gaar ah shakhsigaasi waa sida qoyskaasi waa sida kooxdaasi waa sida ama dhinaca kale aad hadallo aan waxba ka jirin maanta waxa dad lagu laayay meel heblaayo xaggan iyo xaggan baa wax ka dhaceen balaaya xaggan ka soo guuxday yani hadallada noocaas inta uu qofku ka feejigan yahay
wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo xorriyadda hadalkiisa ilaa iyo inta sharcigu banaynayo intaas ayaan kusoo koobi lahaa kolley waan kusoo noqon doonaa alxamdulilah ilaah waa mahad iska leh inaan isweydiinayno dadkeennu maxay xaq u leeyihiin oo dastuurka ama shuruucdu dalku ay u ogoshahay maxaynanse u ogolayn oo ka reeban inaynu isweydiino o aynu kulankan isugu nimaadno alxamdulilah hal arrin oo ummadda soomaaliyeed waan odhan lahaa inteenna meesha fadhida iyo inta kaleba habka isbarbardhigga si wax loo kala garto habka isbarbardhigga oo aynu u naqaano markii wax la isbarbar dhigo in cid loo jeedo waxaan odhan lahaa mar walba habka isbarbardhigga ha la isticmaalo mar walba waa shay mudan habka isbarbardhiggu waa mid shaksi hadday tahay koox hadday tahay ummad hadday tahay habka isbarbardhiggu shalay iyo maanta waa nidaam meel lagu gaadho halka la taagan yahay lagaga gudbo meel wanaagsan looga sii gudbo weyn laakiin haddii ay ummaddu ama shaksiyaadku ama kooxuhu ay wax isbarbar dhigi kari waayaan shalay iyo maanta dad jira maaha wax isbeddelay keeni karaanna ma jiro arrintaasoo mar walba ay dhibaato u arkaan dadkeennu in hebel loo jeedo loo turjumo waxaan odhan lahaa sharcigu caasimadda jigjiga shalay nooceeb u ekaa muxuu ka ahaa horta ma sharcigaa jiray shalay oo sarreeyey mise sharci darradaa sarreysay shalay shalay waxaa sarreeyey sharci darrada maantana sharcigaa sarreeya tusaale gaaban haddaan keeno dhacdooyinka dhaca mar dhoweyd dabaq dheer oo dabaqyada ka mid a caasimadeenna ku yaalla jigjiga qof baa ka dhacay waxaa baraha bulshada saa loogu sii daayey booliskaa dilo ka soo tuuray dabaqa waxaad xasuusanaysaa mararka qaarkood markaa baraha bulshada dadka isticmaala ee sida xun u fikira markaad aragta dhaqankooda wiilkii yidhi aabbihii intuu sheekeeyey aabay maanta sagaaran qac ku siiyey leebo lugta dhegta iyo isha intaan leebkii isu mariyey ayuu haddana leebkii intaasoo dhulka sii galay aabba been sheegoo been run u eg sheeg buuhi oday soomaaliyeed bu ah aabba way xoqonaysay buuhi lugta dambe intay soo qaaday ayaabay dhabanka ku xoqoysay buuhi marka waxa weeye shalay waxaa xalaal ahayd in dadka naftooda sida la doono laga yeelo maantana boolis ahaan iyo xukuumadda maanta jira waxaan muddo badan isugu kula keeni lahayn xukuumadda maanta jirta war dadka ha xidhine say doonaan ha u hadlaan ka khalad gale ee sharcigii ku xadgudba ee odhaahihiisa iyo aahaarihiisa si khaldan u isticmaala ha xidhine albaabta ka daayo u yeedha waaniya digniinka siiya fasaxa laakiin sidii shalay uun albaabta ka daaya dadka marka inaynu mar walba isbarbar dhigno wixii shalay yaallay iyo waxa maanta yaallay inaynu isbarbar dhigno waa shay muhiima markaan taa ka gudbo habka isbarbardhigga sawaxan badan baad moodaa inuu baxayo oo hadda nin baa maal dhowta wuxuu soo qorayay baraha bulshada waxaynaan abid intaan jirray xataa wax qoro aynaan arag dad badan oo sharaf iyo karaamo leh cizi iyo sharaf leh ayaabuu soo taxay baraha bulshada waxay la nool yihiin buuhi xanuunka dilaaga ah kuwaasay kuwo badan usii rixinayaan sii dhegaysanayaan oy leeyihiin waa xorriyatulqowl waxbaa inaga khaldan haddaan soomaali nahay sida qabyaaladda iyo nasabka aynu u kala saari kari la'nahay ayaynu xorriyatulqowlkii iyo xadgudubka u kala saari kari la'nahay saamaynta ay ku yeelan karto bulshadeena waxay tahay marka loo eego nabadda wada noolaanshiyaha iyo kala dambeynta hadallada nacaybku maxay ku yeelanaysaa saameynba hadallada nacaybka iyo xadgudubka hadallo nacayb oo kaliya kuma xadidaynaaba hadda imika aan usaan qabo waxa baraha bulshada ka socda ee ay sameeyaan xanuun dilaa baa yay la nool yihiin hebel iyo hebel xanuunka dilaaga ee HIV AIDS ayaabay hebel iyo hebel la nool yihiin qofku markuu leeyahay dad sharaf leh karaamo leh uu ku leeyahay baraha bulshada ku sii daynayo
intee bay leegtahay miisaan intee leeg bay leedahay aynu miisaanna halkaas caqliyan ruuxa qaba xataa xaq uma leh inuu sheego qof qaba laftiisa laguma odhan karo xaq uma le sharciyan in baraha bulshada inta la dhiga kii qabay laftiisa in baraha bulshada lagu faafiyo xaq laguma le ama lagu muujiyo in moraalkiisa iyo dadnimadiisa iyo xuquuqda bini'aadminimo ilaahay la dhaliyey iyo tiisa dastuuriga ah labadaba in loo ilaaliyo xataa kala noole xaq u leeyahay nidaamka dastuuriga ah ee sharciga ah heer dal iyo heer deegaan iyo ka internationalka heer caalam intaba marka la eego waa xorriyatul qowl la xorriyatul qowl ma waxaan isticmaalay waa xadgudub sharci darro ah oo fal dambiyeed ah wey fal dambiyeed baan isticmaalay ma isticmaalo xorriyatul qowl marka in shaad xorriyatul qowl loo geliyo fal dambiyeedkii yaan la isku dayin waa ceeb damiirku inuu ina shaqeeyana waa shay muhiima hadda hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo xanuunka dilaaga hay la nool yihiin yaan weli usii qoslaynaa haddana cid ka falcelinaysa aynan jirin bulshadii marka bulshadii way wada xun tahay macnaha ujeedadaydu ma aha wax intee leeg baa ka dhalan kara haddaa su-aasha ahayd uu wariyuhu i weydiiyey saameyn intee leeg bay keeni kartaa nabadgelyadii ayay halis ku tahay markay horta sarreynta sharcigu markay dhulka gasho amnigiibaa faraha ka baxay in sarreynta sharcigu ay xagga sare marto oy sarreynta sharcigu shaqaysana amnigiibaa faraha kusoo noqday waxaa imanaya xasilooni amni baa imanaysa markay sarreynta sharcigu shaqayso ee laga shaqaysiiyo waxaa imanaya deganaansho iyo xasilooni siyaasi ah imanaysa waxaa kaloo imanaya deganaansho iyo xasilooni nafsiyan wada noolaanshaha bulshada gudahooda ah marka kala saska iyo kala shakiga ayaa meesha ka hadhi hadallada nacaybka waxay keenayaan oo kow ah sas iyo kala fogaansho iyo kala shaki ayaabay keenayaan kala shaki iyo sas haddii uu yimaadana maxaa meesha imanaya dee ammaan daraa imanaysa waan kusoo noqona commissionerka waxaa jirta in badan dadku waxay isweydiinayaan marka dadka hay-adaha sharciga ay la xidhayo sidee loo kala saari karaa hadalkii inuu yahay hadal qofka uu xorriyadda hadalka uu isticmaalayo iyo hadal nacayba inuu yahay commissionerku noogu celin doonaa markale kusoo noqonayna xildhibaankaan siinayna doorka baarlamaanka iyo xildhibaanada ma loo baahan yahay waktigan in baarlamaankeenu ama sharci dejintu ay hadda tahay xilligii ay iyaguna qeyb ka qaadan lahaayeen sidii looga hortegi lahaa halista ay keensan karto xorriyadda hadalka ka baarlamaan ahaan ama sharci dejin bayaan waxaa jiray laga soo saaray hadallada nacaybka iyo faafinta xogaha beenta ah proclamation-kaas uu ahaa 1185 isbaaro 2020 waxaa ansixiyey baarlamaanka dalka iyadoo laga duulayo si loo yareeyo isku dhaca qowmiyadaha iyo bulshada inaanan la faafinin xogo been ah si ay u abuurto isku dhaca qowmiyadeed mid diimeed taasoo ahayn keliya in baraha bulshada qoraal lasoo dhigo ama qoraal ha lagu soo dhigo ama sawir ha lagu muujiyo ama video wax walba oo kicin ama incitement samayn kara si looga hortago taas waxay keenaysaa in midnimadii ummadda la badbaadiyo dhaqaalihii dalka kor loo qaado marka ka sharci dejin ahaan bayaankaas in sidiisa loo hirgeliyo kolley hay-adihii amniga garsoorkii sharci dejintii waan ku dhannay meesha iyo fulintii oo xafiiska warfinta nagala socda marka muhiimaddu waxaa weeyaan shacabkeena inaan ka wacyigelino maxay tahay xorriyadda hadalku muxuu yahay hadallada nacayb hadallada nacaybku waxa weeyaan iyada oo qofka lagu beegsanayo ama shaksiyadiisa ama diintiisa ama heybtiisa si loo abuuro kicin bulsho ama isku dhac qowmiyadeed sharcigu wuxuu dhigayaa dadka hadallada noocaas oo kale ah haddii lagu helo in ugu yaraan 2 sano lagu xukumi karo ama 100 kun oo bir oo ah ganaax lacageed ah saameynta ay ku yeelan karaan kicinta bulshadu wax ka mid ah kow dhaqaale dalka inuu burburo 2 isku dhac qowmiyadeed inuu meesha yimaado 3 midnimadii iyo kalsoonidii shacabku inay burburto oo cid kale isku halayn kari weydo inay meesha ay timaado marka saameynta ugu badan uu yeelanayo waa mid weeyaan annaga ka xildhibaan ahaana inaan soo saarno shuruuc lagu xakameynayo hadallada nacaybka iyo xorriyadda hadallada nacaybka in la ilaaliyo ama la xadido micnaheedu waa xorriyadda qowlkii in meeshu ka baxayo xorriyaddu waxa weeye waa xuquuq asaasi qofka bini'aadamka uu leeyahay laakiin xorriyad walba xad ay leedahay
xorriyaddu waxa weeyaan hadalkaaga inaad mid bulshadooda wax dhisi kara wax u soo kordhin kara inuu noqon karo laakiin hadduu noqdo mid abaabulaya kicin bulsho ama in qowmiyada isku dhacaan uu yimaado ma aha xorriyade waxa weeyaan abuurid rabshado iyo kacdoon